nabigu waa ka yeelay Caaisha markuu maalimaha kamid ah waxaliyada Caaisha waxay tiraahday nabiga ayaa wuxuu noo qalay markaas shaata ama markaas neef ari ay u qalay neefka ariga markuu uu sadaqeeyay ilaa ay hal waa laga reebay markaas uu weydiiyay Caaisha maxaa harbu yeelay rasuulka Allah wixii yeeray dhan waa sadaqeysay hal rug bas aan u hartay ibax dhan way loo yeelaan buu laakiin hashaas lugaan ay qasaartay buu yiraahday maxaa yeelay wixii adduunka ku isticmaasho kuma raacaan aakhira laakiin waxaad baxsato oo aakhira dirsato ma aakhira kula tagayaan walaalayaal waxaan halkan u taaganahay walaalaha muxsiniinta mutawarriciinta in aan weydiisano caawinaad waayo ilaahay wuxuu leeyahay وتعاونوا على البر والتقوى اسكو غرغار وناغ iyo taqwada wala tacaawanu على الاثم والعدوان عداوده iyo ithmiga iyo waxaas isku gargaarina walaalayaal meeshan aan joogno waa meel dugsi ah ama madrasa ah saad u taqaanayo waa meel la aasaasay muddo 6 bilood ka hore annagana aan gacanteena ku aasaasnay dhisan iyo shubkan annaga aan gacanteena ku soo guranay oo annaga aan suranay bacdan kor saaranna ay noo saareen walaalo muxsiniin ayagana wasaas oo kale mutawarriciin ah oo markii aan dhisanay wax aan kor ka saaranay aan waynay ayaga noo saareen baantana meeshan ardadii way noo qaadi waysay oo intan in ka badan waan rajaynaynaa hadduu alla nafta baaqi nooga dhigo insha Allah meeshan aan joognana waxa weeyaan xarada qaxootiga dhagaxley waliba qaybteeda dambe oo hadda qaxootiga gadaal ka soo dega ah walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu caawisaan meeshan in maxaa la yiraahdaa oo aan dhisno madraso weyn aan ka dhisano nabigana sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qof muslim ah ninkii kurba ka feedo oo ka nafisiyo kurba oo kurbooyinka adduunyada ah asagana ilaahay wuxuu ka feedayaa kurba oo kurbooyinka aakhira kamid ah nabigana waa tii uu dhahaye waxa la baxa walow bishiqi tamra timir jeexadan Allah ka dhigay marka meeshan in Allah ninkii wax ku sadaqaysto waa meel dugsi ah waxyaalaha waxay kamid yihiin amalka aan gooyin ilaa nabiga soo sheegay acmaash way go'an qofka markuu dhinto ilaa 3 ma ogiye marka tan waxay kamid tahay acmaash aan gooyin oo sadaqatun jaariya ayaa kamid ahayd madrasadan inta ay dhisan tahay ee wax lagu baranayo iyo hadii dhismahan la dumiyo intay sii dhisnaan doonto ilaa qofkii aasay wax uu ku leeyahay amalkiisa aan gooyin ay kamid tahay marka walaalaha muxsiniinta ah mutawarriciinta ah waxaan ka codsanaynaa in ay nagu caawiyaan wax Allah wixii ay heli karaan ay nagu kaalmeeyaan ayagana ilaahay bedel khayr qabo oo siiyo waayo sadaqada waxay gaashaan u tahay qofka muslimka gaashaan uga noqonaysa maalinta qiyaamaha cadaabta maanta aan joognana waa bil Ramadaan waa bilaha nabiga sallallahu alayhi wasallam bishii oo aad wax soo sadaqaysan jiray waxa leeyahay laba bishan uu badin jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu quraanka akhriyo iyo inuu wax bixiyo labadaba bishan uu la walaawi jiray marka walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad nagu kaalmaysaan meeshan